بسم الله. إيش مع ورسامة ديجيتال ميديا وايد سلامي دمانتي أيان ويتو dadkii nala socday waxaanu ka dignay wafdi Soomaali ah oo wasiirkii shidaalka hogaaminayay shidaalka iyo macaadinta oo London tagay raba inay saxiixaan heshiis la saxiixaan company Ingiriis arrintaas waanu ka dignay waanu u sheegnay dadka Soomaaliyeed khaasatan kuwa asalkoodu yahay Soomaali ee dalka Ingiriiska degan inay scandalka ka hortagaan wadagtihiin dawladda Maxamed Abdullaahi Farmaajo iyo Roble ma haystaan sharciyad ay heshiiska noocaas u kala geli karaan waqtigoodii wadagtoosii waa dhamaaday madaxweynaha waxay ka dhamaatay sanadkii hore bishii February 8 ra'iisul wasaaruhuna waa caretaker labaduba waa caretaker ama ku sameeyaal weey inta madax kala imaanayso midna marka heshiis ma geli karo baarlamaan heshiiskii ratification ku sameynaya ama ogolaanaya ama diidayana ma jiro sida awgeed hawl kasta oo ka duwan mid caadiga oo routiinka la yiraahdo hawl maalmeedka maalintii wax ka gedisan kama shaqeyn karo ilaa madax kale timaado oo bedesho waxa hadda la soo dambeysiyay in wasiirka shidaalka iyo macaadinta in la yiraahdo engineer Cabdirashiid Maxamed Axmed uu galay heshiis kuna faanay inuu heshiis la galay sharikadda Coastline Petroleum Limited waxay tahay manaqaan waxa la yaab leh in madaxweynuhu bogiisa biil Soomaaliya ku soo saaray inaan lagala tashan heshiiskaas waxna uusan ka ogeyn horena warqad uu soo saaray inaan heshiis la geli karin hay'adaha dawladda inaysan heshiis geli karin ra'iisul wasaaruhu wuxuu ku tilmaamay heshiiskaas la sheegay inuu sharci darro yahay wasiirku ma isaga iska marka iska qarda jeexa oo heshiis iska geli karaan madaxdii loo ogeyn taas suuragal ma waxa nagu maqaala in waxa la yiraahdo signature bonus ama xuquuq qalinka ay madaxtooyadu ama villa Soomaaliya horay u qaadatay oo heshiiskaas isafkaradkiisu ka dhacay xalane arrintu waxay u muuqataa scandal ballaaran oo la mid ah kii badda oo kale waagii badda Kenya iyo Soomaaliya waxyaalaha dhacaya yaab yani waxaas oo dhan waxay dusha ka fuulayaan boobka lagu hayo doorashadii ciidamada meel kasta la geeyo oo lagu caburinayo dad aan dadku u yeeran ama aan dooran ama aysan rabin oo la dul saarayo dad loo xirayo kuraasti iyadoo dadkii xaq u lahaa qaylinayaan oo ay leeyihiin aan tartanno waxyaalahaas oo dhan baa dhacaya wax la arkay oo la maqlay markaas oo kale oo marka aan Allah sahlo aad iyo aad baa u salaamantiin oo nabadgelyo